imtixaanaadka sibisterka kuliyadaha kala duwan ee kala ah maamulka iyo maareynta shareecada islaamka iyo waliba computer science-ka ama IT-ga iyadoo imtixaanaadkan isaaka uu ka furmay xarunta maxadka sare Al-Furqaan Buuhoodle oo ay jaamacaddu si ku meel gaar ah ugu jirto cilad jirta dhismaha jaamacadda awgeed horreyn waxa ka warbixiyay imtixaanka isaaka bilowday iyo qaabka uu bilowday Xamdi Cabdirisaaq Xaaji Xasan oo ka tirsan xafiiska imtixaanaadka jaamacadda Bariga Afrika farceeda Buuhoodle sidoo kale waxa halkaas ka hadlay maamulaha jaamacadda Dr. Cabdishaafi Axmed Cali isagoo u mahadceliyay maamulka imtixaanaadka dhanka kale waxa mahadcelin ballaaran u soo jeediyay maamulka maxadka sare ee Al-Furqaan gudoomiyaha guddiga sare ee jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda Buuhoodle Xaaji Cabdirashiid Xaaji Samatar oo mahadceliyay maamulka maxadka Al-Furqaan ee magaalada Buuhoodle kaasi oo saaka suurtageliyay inuu qabsoomo imtixaankani ugu dambeyntii ardayda saaka u fadhiisatay imtixaanaadka dhamaadka semesterka jaamacadda ayaa dareenkooda ka warramay shucuurtooda ku aadan imtixaanaadka waxa galay imtixaanka u fadhiistay saddex kuliyadood kuliyadda shareecada oo ahayd kuliyadda lagu aasaasay jaamacadda iyo kuliyadda BBA-da iyo kuliyadda IT-ga ama computer science-ka waxaan rajaynaynaa inay guulo badan kala kulmi doonaan ardaydu iyaga oo ku faraxsan oo ku qanacsan sida quruxda badan ay u galayaan imtixaanka waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan guddoonka jaamacadda Dr. Cabdishaafi Axmed Cali maamulka imtixaanka Sheekh Axmed Sheekh Cumar iyo macallimiinta iyo asatidada sharafta leh sida quruxda badan soo gudbiyay imtixaanaadka idin muuqata jaamacadda Bariga Afrika farceeda magaalada Buuhoodle in ardayda ay u fadhiyaan imtixaankii kuliyadaha kala duwan sida uu idinka warbixiyay maamulka imtixaanku maanta joog fiican oo qurux badan buu ku socdaa oo ku bilowday ilaa muddada imtixaanku socdana imisa ku dhamaanaya jeedinayna hooyankii waxaan u mahadcelinayaa maamulka imtixaanka oo si fiican oo qurux badan dhinaca kale waxa iyagu halkaas ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii u fadhiisatay imtixaanaadka maanta ugu dambeyntiina waxa hadalka soo xiray Sheekh Cabdirashiid Xaaji Samatar oo ah gudoomiyaha boorka jaamacadda Bariga Afrika فرحسنا إنه نوبل عمل امتحان كيس مستوانك وعنو مانتا قلعي كيسر يقول رئيسي وحن دريم يا شعور عادية أو فيعن امتحان كنا وفيعن يهي من دريم إن أركان أبو قبلا مقعي مصطفى عبد محمد وحن هاي أرض اللي في جامعة بريغ أفريقيا كان بس كده مغابوه وله وحن نختار كلية BBA Bachelor Business Administration شركة كل ساكا أبو وفيعن يهي فرحت وين بين أي تهاي إن عن ساكا دمستو وأنا فردي امتحان كي وكسر حرمي سمستر كي كوبات جامعة وأنا فرحسن هاي كل درين كي وقعد وكحسن يهي بسم الله الرحمن الرحيم مدعي وعبدالله محمد عبد الرحمن أنا دكتور جامعة بريغ أفريقيا قيبتها الشرعية دفعة الكوبات أيانا هاي آدي بان أو فرحسن هاي امتحان كي كوبات نحن فرسانو مانتا آدي أيو درينك يوصل هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ونسر عبد المهد امتحان دكتور كلية الشرعية على المستوى الخامس امتحان كآدي بان أو فرحسن هاي بلو بيسا إن شاء الله إلهي نحن كرجينا يوم نوفر الله كل عين على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك محمد درينك آدي بان فرحسن هاي امتحان كلية الشرعية وما شاء الله الحمد لله إلهي كرجينا إلهي نوفر الله إن شاء الله ساعتها بركز وحنمو مركا ديوان امتحان كل وقت تريفنا كلية حاجة درستها كلية الشريعة القسم الأول بانهاي مركا امتحان سيدي وقت تريهم بلا ماي فضل بيها يقول بلا مسألة فضولي هاي ما أتكا كلية كمبيوتر ساينس امسك كلية بلا كلاي تقاضى كلية أنا في باور هي كمبيوتر ساينس صدق أنا ما هذا علمي إلهي بمحله ومعمل كمحد الفرقان ورنتي هذا النهاي بوركيو معمل كجامعة بريغ أفريقيا فرع بوهودله نسيي محد الفرقان إن نكون قادنا امتحان كي جامعة مركا وأنا محل يا معمل كمحد إلهي بمحله إدكستو هوشا كذا قالتين وحلا جزاكم الله خير عبد العزيز هذا جامع سمسة TV بوهولة